waxaa jiray laba ilmood oo walaalo ah. waxa ay la noolaayeen aabahood, hooyadoodna waa ay dhimatay. waxa ay ku noolaayeen farxad aad iyo aad u wanaagsan, aabahoodna way jeclaayeen. laakiin markii dambe aabahood ayaa waxaa soo guursaday islaantaasu aad iyo aad u xumeed, ilmahana aan jecleen, baqiilna aheed, oo waxa la cunayaba waa ay ku digtoonaysay. markii xilliga raashinka la gaaro, ilmaha waxa ay u siin jirtay raashin aad iyo aad u yar, ayagana raashinkaas waa ay masuugi jireen. aabahoodna waxa uu dhihi jiray, ilmahayga raashinka iyo cunaa. raashinkaas ayay cuni jireen, kadibna way iska tegi jireen. xilliga cashada sidoo kale raashin yar ayay siin jirtay. maalintaasoo dhan waxaa laga yaabaa hal mar oo ku yar in ay wax siiso. habeenkii markii la gaaray ayaa habeen waxaa dhacday ilmihii in ay habeenkii gaajo la seexan waayeen. wiilkii ayaa walaashiis la hadlay oo waxa uu ku yidhaahday, walaashaydiyay gaajo mukaysaa, aniga gaaja ayaan la jiifi la'ahay. ayadana waxay tiraahday, waxaaban ku dhowahay in aan gaajo u dhinto miday heeso. laakiin intii isla hadlayeen ayay sharqan maqleen. waxay maqleen aabahood iyo eedadood oo wada sheekaysanayo. eedadana ay leedahay, ilmahani waa in aan fogeynaa, waxaan siina ma hayno. odaygana leeyahay, ilmaha nala joogaan, waan jeclahay, ilmahani weeye. ayadana waxay tiraahday, maya, ilaaba ilmahan waa inaan fogeynaa oo meelo kale ay ku noolaadaan. laakiin aabbihii asaga oo ka xun arrintii ayuu islaantii warkeedii yeelay. gabadhii aad iyo aad ay u naxday. waxay ku tiraahday, walaalkaygiiyo waxay ku heshiiyeen in ayna fogeeyaan. wiilkiina waxa uu yidhaahday, aamus, sharqantaada yaa la maqlin. caqliga aan ku soo noqonno, aniga ayaa inoo dejinayo. habeenkii sidaas ayay ku seexdeen, ayagoo murugaysan. waagii intuusan baryin oo aysan soo kicin odaygii iyo habartiiba, wiilkii ayaa soo kacay. waxa uu aaday duurkii, waxa uuna bilaabay in uu soo aruuriyo dhagaxaan, kuwaas oo doonaya hadhowdii in uu jidka kaga dhigto calaamado iyo meel uu ku soo noqon lahaa. dhagaxiisii ayuu waxa uu ka buuxsaday kiish, hurdadiisiina waa uu iska noqday. islaantii waagii markii uu baryay, islaantii ayaa ilmaha albaabka u garaacday. waxa ayna ku tiraahday, soo baxa, xilligii aan bixi lahayn ayaa la joogaa. kadibna mid kasta waxa ay siisay xabad rooti ah. waxa ayna ku tiraahday, rootigani xilliga qeedada cuna, waa qeedadiinii, ka hor ma cuni kartiin. laakiin wiilkii kiishkiisii yaraa dhagax ayuu ka buuxiyey oo meel uu rooti kaliya kama bannaaneen. jaabkay walaashiis ayuu gashaday. sidaas ayayna ku ambabaxeen. wiilkii waxa uu bilaabay meel kasta oo laga leexdaba in uu dhagax dhigo si uu hadhowdii calaamadii uu ku soo noqon lahaa uga dhigto. islaantana wiilka ciyaar inuu dheelayo ayay u haysatay, ayadoo ku qaylinayso dheesay, soo soco, xilli la ciyaaro lama joogo. laakiin warkeedii wiilkii ma uusan dhegaysan, oo howshiisii ayuu iska watay oo dhagaxdiisii ayuu meelaha dhigdhiganayay. sidii ay u socdeen ayaa waxaa la gaaray duurkii ayaa la gaaray. meel ayaa ilmihii la fadhiisiyey, dabna waa loo shiday. waxaa lagu yidhaahday, ilmahaygiiyo meeshaan sii fadhiya, waanu idiin soo noqonaynaa, ha ka tegina dabkan agtiisa, hadhowdii duurkan idinkama raadin karne. odaygiina habartii ayuu raacay, isagoo ilmihiisa dhahayo, aabba meeshaan igu sii suga. kadib ilmihii meeshii ayay iska fadhiiseen, wayna dareensan yihiin in aanan noo soo noqon rabin. laakiin wiilkii wuxuu yidhaahday, gabadh walaashaydii ha murugoonin, waynu noqonaynaa, nabad ayaan ku noqonaynaa. sidaas ayay ku qadeeyeen. laakiin gabadhii ayaa sharqan maqashay oo geedo la jarayo ayay maqashay gawdoodii. waxay ku tiraahday, walaalkaygii oo dhegayso, aabba ma uu naga fogaanin, meel noo dhow ayuu geedaha ka jarayaa, sharqantaas oo ma maqashin. laakiin geedaha la jaraya ma aheen geed la jarayo, ee kurtun iyo geedo oo isku xirxiray oo isgaraacayo ayay ahaayeen, oo carruurta uga dhigayay in uu agaarkeeda joogo. intii ay odayga sugayeen ayaa habeenkii soo galay, ayagoo oo intii sugayeen ayay seexdeen. hadday soo kaceenna waxayba soo kaceen
xilli habeen ah oo saqdhaxa ah, bahallihii iyo shimbirihii wixii dhanna ay wada dhawaaqayaan. kadibna carruurtii waxay bilaabeen in ay gurigoodii soo aadaan ayaga oo raacayo calaamadihii oo wiilkii maanta soo samaysay oo meelaha soo dhigdhigtay. waddadii sidii u sii socdeen oo dhagaxba dhagax ugu sii simayay ayay waxay imaadeen gurigoodii ayay imaadeen. albaabkii haddii ay garaaceenba waxaa ka furtay islaantii ayada oo la yaaban sida ay carruurtan guriga ku imaadeen. waxa ayna ku tiraaday, yaa guriga idin keenay oo idin soo tusay? aabbihii laga aqli badnaa soo booday ilmihiisi markuu imaadeen waa uu ku farxay, laakiin awood oo islaanta uga celiya oo yiraahdo adiga guriga ka bax, ilmahan ma baxayaan, ma uusan qabin. habeenkii kale markii la gaaray, islaantii waxay go'aan kale ka qaadatay in ay ilmaha fogeyso. odaygiina waxa ay ka dhaadhicisay, ilmihiina way iska seexdeen. ayagoo hurdayo ayaa subaxdii albaabka loo garaacay. waxaa lagu yidhaahday soo kaca. ayaga dareen ayay qabeen, horay ayay ka naxeen. kadibna waxay tiraahday minjab rooti ah ayay siisay. waxa ayna ku tiraahday, waa qadadiina, xilliga qadada ka horna rootigan ma cuni kartiin. sidaas ayay ku ambabaxeen. laakiin wiilkii subaxdan wax dhagaxa ma uusan diyaarsanin, laakiin rootigiisii ayuu jajabinayay oo ka dhigayay meeshii uu dhagax ku tuur lahaaba jab rooti ah ayuu ku tuurayay si uu uga dhigto calaamad oo ku soo noqdo hadhowdii markii laga soo tago. markii gaaray duurkii oo dabkoodii loo shiday ayaa la yidhaahday, meeshiinaan jooga, waan idiin soo noqonaynaa. sidii ayaa looga tegay. halkii rootiga ayay kala jabsadeen. ilmihii ay ku wada qadeeyeen. habeenkii markii la gaaray oo xilli dambe la joogo ayay soo kaceen. ileen abood intay sugayeen ayay seexdeen. hadday soo baraarugeenna waaba habeen ayaa la marayaa. gabadhii ayuu kiciyey oo waxa uu ku yidhaahday, walaashaydiyayna keen, markaan gurigii ayaan ku noqonaynaa. kadibna waa ay soo baxeen. jidkii ay ku soo noqdeen, laakiin wiilkii ma uusan helin jab rooti ah oo meelihii uu rootiga dhiganayayba wax rootiya ma yaalaan. wuxuu ku yidhahda, walaashaydii wax rooti ah oo jab ah meelahan yaalla ma lahan. nakeen waan raadinaynaa gurigii. ileen maantii markii uu soo socday oo rootiga dhigdhiganayay, shimbirihii ayaaba rootigii irsaaqa dhigtay oo cunay, oo jab rooti ah meel ma aysan dhigan. gurigii ayay ka dhumeen. sharqantii shimbiraha, hawdkii, wixii dhaanba waxa ay dareemeen cabsi saa'id ah. meel kasta waxaa kasoo boodayo bahal ayaa kasoo boodayo. meel kasta waxaa jooga mas ayaa jooga oo inuu cuno diyaar u ah. bahallahan kale iskaba dhaaf, geedaha sharqantoodii waxa dhanba waxay u haystaan barir aakhiraad. kadib way ordeen, ayagoo meel ay u ordaan iyo meel aysan ka ordaynba aan aqoonin. laakiin meesha bahal ma joogin. cabsidii ka dambadatay awgeed ayaa shay kasta waxa uu yahay mahane wax kale ayay u malaynayaan, oo hadday kortun arkaanba waxay u qaadanayaan bahal. waagii markii uu baryay, ayagoo baahan oo ooman xalay oo dhan ordayay oo wax walbaba ka ordayay, ayaa waagii u baryay. kadibna caleemihii ayay biyaha ka cabayeen oo dhadadii qabow ku dhacaysay ayay biyihii ka cabeen. midhaheediina waa ay cunayeen, ayagoo marbo meel saas u joogo oo habeen iyo maalinba sida u wareegayo ayaa waxaa kasoo wareegtay intay duurka ku dhex lunsanaayeen 3 habeen iyo 3 maalin. subaxdii dambe ayay waxay arkeen guri aad iyo aad u qurux badan ayay arkeen. gurigii haddii ay arkeen ay isweydiiyeen, gurigani muxuu ahaa? alla, waa guri aad iyo aad u qurux badan. way la tacajabeen guriga quruxdiisa iyo wanaagiisa. gurigii hadday imaadeen waxaa ka furtay islaan waayeel ah. waxay tiraahday, maxaa aheedeen? waxay yidhaahdeen, ilmo lunsan ayaan nahay. waxay tiraahday, soo gala gurigan ayaydiin oo kale ayaa joogto.
wax cuna oo wax caba, xabsidana iska baabi'iya ayay ku tiraaday. kadibna ilmihii ayagoo faraxsan ayay guriga galeen. waxa ay siisay raashin aad iyo aad u macaan. ilmihiina raashinkii ayay cuneen wayna la cajabeen. waxay yiraahdeen raashinka macaan badana. laakiin islaanta waxay ahayd islaan dad qalasho ah oo waxay tiraaday maanta ilmo ayaa ii soo gacan galay aan ku qadeeyo iyo ku casheeyo. allah, ilmaha yar hilibkooda jecliyaa. markii habeenkii la gaaray ayay ilmihii waxa ay seexaysay qol. waxay ku tiraaday ilmihayga halkaan ay seexada. ilmihiina ayagoo faraxsan ayay waxay yiraahdeen ayayay waad mahadsan tahay, waa ayaya fiican ayaa tahay. laakiin islaantani waxay sugaysay intay habeenkii ka seexdaan. waxay dhahaysa hadda way kala seexdeen, waan kala fogeynayaa, midba meel ayaan ku xirayaa si aan mid kasta gooni u cuno. kadib wiilkii ayay u imaatay, meeshii ayay ka qaaday. waxa ay geysay qol kale oo ay ugu talagashay dadka in ay qalada ay doonayso in ay ku xirto. wiilkii wuxuu soo kacay islaantii oo guriga xirayso. waa u qiilshay, ayaya maxaad ii xirtay? ayadan waxay ku tiraaday hilibkayga macaan badanow meeshaan iigu jir. waxay hurdada ka kicisay gabadhii ayadoo tiraaday meeshaan ha ii jiifini, ka kac, walaalkaa halkaas ayuu ku jiraa. xalwad iyo buskud iyo chocolate u sameey, waxaan doonayaa dhaqso inuu cayilo. anigu ma jecli hilibka caatada ah in aan cuno. sidaas ayay gabadhii ugu shaqaysan jirtay. hadday shaqada diidana waa ay garaaci jirtay. walaalkeedana halkaas ayuu ka arki jiray. wuxuu isku dayay in uu guriga soo jebiyo. habartiina waa ay ku qoslaysay oo waxay dhahaysay haddii aad awoodaysid soo jebi gurigani. in la soo jebiyo annagu waan ka taxadirnay, adiga iska dhaafee dadka waaweyn ayaa soo jebin waayay. gabadha furaha meesha la saaray way arkaysay. waxayna ogeed qolka uu ku xiran yahay walaalkeed furaha lagu furay inuu kaas yahay. laakiin ma aysan gaari karin. jaanis inta meel ay ku fuusho ay ku soo dejisana habartaba maba ay siin jirin. way ku shaqayn jirtay, waa ayna garaaci jirtay. waxayna dhihi jirtay raashinka walaalka dhaqso u geey, oo waxay jecleed xilli walba in raashinka loo geeyo. walaalkeedna markii raashinka loo geeyo oo walaashiis la hadal maago ama tala sii, habarta way ag taagnaan jirtay oo xoog ayay ku kaxayn jirtay. waxay dhihi jirtay meeshaan in aad sheekaysatiin kuguma keenin ee soo bax, shaqadaada qabso. wiilkiina waa u qaylin jiray. waxa uu sameeyey, wuxuu isku dayay in uu raashinka diido, uusan raashinka cunin. laakiin waxa uu ku fakeray haddii aad raashinkaani diidid maxaad faa'iidaysaa? waad caatoobaysaa, waana tabar yaraanaysaa. kadibna habartan iskama celin kartid. raashin fiican cun si aad isaga celisid islaantan waayeesha ah ee dad qalashada ah. islaantii dad cunka ahayd. wiilkii sidaas ayay mool ugu xirnaa ugu quudin jirtay. gabadhana waa ay ku shaqayn jirtay oo shaqo kasta gabadha ayay ku qaban jirtay oo way garaaci jirtay. oo waxay yeeshay shaqaale yariis ah oo xoog furan. ayada afka unbay ugu talin jirtay. had iyo jeerna waxay kormeeri jirtay wiilka in uu cayilay iyo in kale. intii howshaas lagu jiray ayaa waxaa kasoo wareegtay muddo. islaanta gabadha waxay isdhihi jirtay intii aysan kugu xoogaysan ayada wax fiican ha siinin, haddii kale intay xoogaysatay isku dayaysaa in ay kula dirirto. laakiin wiilka meel ay ugu jiray raashin fiican ayay siin jirtay, wayna kormeeri jirtay in uu cayilay iyo in kale ayada oo tataaban jirtay. gabadhii murugo zaa'id ah ayay dareemaysay oo waxa ay dareensaneed maanta in ay tahay maalintii walaalkeed la qalan lahaa. sababtoo ah islaanta waxa ay shidatay foorno aad iyo aad u weyn. ay doonaysaa in ay hilibka ku shiilato. walaalkeedna waa qiilinayay walaasheedii isdaji istaxadar ayuu ku lahaa. gabadhii waxa ay fiirinaysay foornadii la shiday. habartiina waxay isdaadayba tan ma ku tuurataa marka hore. laakiin waxay isdaaday waxaa ku fiican wiilka ayaa caqacayisay markaa cuntid gabadha cun. gabadhiina waxay tiraaday ayay foornadii si fiican ayay u shidantay.
duqdii markii foornadii u dhawaatay ay fiirinaysay ayaa gabadhii soo oroday. habartii ayay foornadii ku tuurtay waana ay ku qufushay. kadibna waxay tagtay meeshii oo furihii saarnaa. furihii ayay soo dejisay. kadibna iyadoo faraxsan oo dhawaaqayso ayay walaalkeed u aaday xaggiisii una sheegayso inay habartii dishay. furihiina ay soo wado. kadibna waxa ay ka furtay albaabkii markii ay furtay ay labadoodii habisiyaan ay farxad ay gurigii duqdii dib ugu noqdeen. waxay u keedsanaa oo dahab iyo xoolo ah waxay ay ka qaadan kareen ayay ka soo qaateen. kadibna waa ay soo carareen oo waxay soo raadiyeen gurigoodii in ay helaan. intii ay wareegayeen ay socdeen oo maro meel ordaanba markii dambe waxa ay ku soo baxeen gurigoodii iyo wadadii guriga loo mari jiray. mise waxay arkeenba gurigoodii ayay arkeen. aad iyo aad ayay u farxeen. muddadaas intay guri ka maqnaayeen waxa ay dhammeed 3 bilood. odaygii aabahood ahaana markii ilmihiisa orday arkay wuu ku farxay. hab ayuu siiyey. ilmihiisii ayuu soo dhaweeyey. islaantii guriga ka burisay ilmaha fogeysayna intay carruurta maqnaayeen ayaa cuqubadii ku dhacday. ayadana waa ay dhimatay. odaygiina ilmihiisii ayuu dib u soo ceshaday oo la noolaaday.